wakaaladda kobcinta iyo horumarinta aadanaha oo afka qalaad loo yaqaano Humanity Growth and Development Agency ayaa deeqa fura dharka la xirto iyo biyo dhaamin gaarsiisay 14 deegaan oo ka tirsan bariga ismaamulka Mandera. Wakaaladda HGDA oo muddooyin badan ku guda jirtay horumarinta waxbarashada diiniga ilaa iyo 26 madarasa ayaa dhinaca kale kaalin lixaad ah ka geysatay caawinta bulshada danyarta. Duulooyinka deeqda raashinka la gaarsiiyay ayaa waxay ahaayeen Qalaaliyo, Dar es Salaam, Saro Hindi, Faray, Koromey, Bidda, Kamorceella, Harir Hoosle, Cumar Jilico 1, Cumar Jilico 2, Leedi, Bulaamin, Bambo iyo Oda. Waxaa sidoo kale deegaanada Oda iyo Bambo oo biyo la'aan baasan ay ka jirtay loo sameeyay biyo dhaamin. Waxaa mashruucan furinta dadka danyarta soo baxsaday dad samafalayaal ah, waxaana fulisay ururka dhalinyarada ee ka qalin jibiyay madaarista ay maamusho HGDA oo ah urur isbahaystay lana magac baxay Raabitatu Khariiji Madaarisul Wakaala ama Alumni Association of HGDA. Sheekh Maxamuud Xasan Xuseen oo ah wakiilka wakaaladda HGDA ayaa ugu horeyntii halkan nooga sharaxaya mashruucan ay fuliyeen. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Aniga waa Maxamuud Xasan Xuseen, mushrif tacliim iyo wakaaladda tarmiya wa namoo insaani. Waxaan rabaa warbixin yar oo kooban inaan ka bixiyo program socday 2 maalmood oo ifdaar saa'im ah. oo programkaas oo ka dhacay ama aan ka bixinaynay ifdaarkaas tuulooyin badan oo ay ka mid tahay Qalaaliyo, Dar es Salaam, Saro Hindi, Faray meesha la yiraahdo, Koromey, Kamorceella, Bidda iyo Harir Hoosle, Cumar Jilico 1, Cumar Jilico 2, Leedi, Bulaamin, Bambo, Oda. Waan ku soo qatinay ifdaarka la bixinayay wuxuu ka koobnaa 7 shay: bariis iyo bur iyo sokor iyo timir iyo mijaani iyo qaxwo. Ayuu ka koobnaa 7 shay. runtii dadka aan la kulmayni dad aad maartay u tawaalaysan oo dadka loogu targalay ah oo dadka soo gudbiyeen ay runtii ay dadka loo baahnaa ay soo gudbiyeen ayaan la kulnay. meelaha qaarkood culeysyo badan ka sii jiray oo waxa dheeraad u ahaa oon sida Oda iyo Bambo labadaas meelood aad iyo aad oon badan iska jiray. waa la soo dhaweeyay barnaamijkaas, aad loo soo dhaweeyay, dadkana aad ay ugu mahadceliyeen. runtii waqti kulul oo barnaamijka aad loogu baahnay ayuu ku soo aaday. rajadayn inuu barnaamijkaas sii socdo aad ugu rajo weynahay maadaama la soo dhaweeyay program dadka ay ka faa'iideysanayeen. shacabkii dadka community-ga loo imaaday ay aad ugu faa'iideysteen u yahay. codsigoodana uu badnaa oo arrintaas ay lahaayeen hanoola soo celceliyay. waxaan ku rajo weynahay in barnaamijkaas uu sii socdo maadaama markii ugu ballaarnay uu had yahay. haddaan ka hor mar kale ayaan bixinay, waa markii labaad. marka rajadayn in barnaamijkaas aad sii socdo waa aad ugu rajo weynahay. meelaha ugu dardaran biilaanta ay ka jirtay oo saameysay runtii sidii Oda iyo Bambo ayadana biyo dhaamin kooban oo 2 maalmood qaadanaysa ayaan u sameynay. haddana way u socdaan. biyaha maalinta shilay aan tagaynay lafteeda waa biyaha way imaadeen iyadoo loo baahan yahay oo biyahaas aad loogu dhaqay biyaha soo galeen. runtii dadka aad ay u soo dhaweyn ugu farxeen. barnaamijka waxaa la soo baxay deeqdaas afurka waxaa soo bixiyay oo la soo baxay oo soo sadaqaystay rag samafalayaal ah ayaa la soo baxay oo khayr iyo maaragtay wanaag inay ajir badan ka helaan doonayeen. waxaa soo gaarsiisay dadka loogu targalay emailii loogu targalay wakaaladda tarmiya wa namoo insaani. waxaana fulinayay barnaamijkaas Alumni Association ayaa fulinayay. runtii barnaamijka aad iyo aad si fiican u dhacay, si loogu targalay u dhacay. dhalinyarta aad bay u shaqeeyeen, si fiican bay u shaqeeyeen sidii laga doonay iyo wax ka badan. maadaama soon la joogay aad iyo aad baa barnaamijka ay ugu qayb qaateen. waxaana doonaynaa runtii in laga sii badiyo sanad walba barnaamijkaas lagu sii daro oo aad loogu sii shaqeeyo
wabillahi tawfiiq. shacabka deeqdan la gaarsiiyey ayaa iyagana dhinacooda mahadcelin iyo ducooyin iskugu daray walaalihii sadaqadan la soo xasuustay. wadaadihii noo keenay oo afurkan noo keenay oo muslimiin tahay waa ka qabloonnay waana ka qaadanay magan allaa yihiin waa u baahneenay magan allo ilaahay waa mahadsiin dadkan maanta nagu soo sadaqaystay afurkaana afuri ajri iyo xasanaad Allah ka siiyo dambigoodii dambi waalidkood Allah dhaafo soo dhaweynaa ragga noo imaadeen culumadii khayr Allah sii muslimiinta soo dhiibeen dadka nagu deeqay oo daasalaam maanta imaaday oo saacadan raashinka bixinaya 23 qoys ka bixinaya yaan u mahadcelinaynaa soon idoo la joogo oo waqtigaas kulli yahay dadka masaakiin yihiin wala soomihiin ku imaadeen ay wala soomihiin mahad weyn u celinaa khayr Allah sii culimada inoo imaaday mahad weyn u celinaa ana barakee sheekh maxamuud soo wacay khayr badan Allah sii oo u duceeyay wax soo dhiibo u duceynaa dadka wadad walaaliyaalkiina daasalaam degan yahay wadad iska baahan oo iska dhibaataysan aad soon wala sooman qariib 8 qoys degan 3 qoysaan ka helnay 23 qoysaan ka helnay in kala nolol daro u baahanahay soonkii tolka noo sheega khayr Allah waan in ka dooni mahad baan celinaa waan leeyin duceynaa insha Allah wallahi barakee culumadii noo keentay deeqan insha Allah wallahi barakee dadka noo soo dhiibo walaalaha inahay Allah barakee deeqin waan soo gaari Allah in barakee waan in duceyni deeqin waan soo gaari dad afurkiis noo keenteen Allah in barakee insha Allah ilaahay idinkiis wixii deeqi hoos noo soo dhiibteen oo wax walba ka kooban waan soo gaareen insha Allah ilaahay idinkiis duco walaalaha waxaan kugu duceynaynaa wax khayr qabo maalkiina maalka Cabdiraxmaan bin Auf oo barakaysan aan kiga dhigin insha Allah ilaahay idinkiis oo leey barakay waa in duceyn khayr Allah insha Allah walaalahay waa mahadsantihiin wixii noo keentay waan soo gaareen awaalkiin ilaahay gudi kara janna firdaws Allah in ka waraabiyo khayr Allah in siiya waa mahadsantihiin insha Allah raashin baan loo keenteen khayr Allah in siiya jazakumullahu khayra marka raashin ko in ka wareejin insha Allah idinkana ajrasa Allah in ka siiya anta baasteena insha Allah ajrasa Allah ka siiya ونكون على بركة marka alxamdulillah soo dhawaad insha Allah dadkii raashinkan soo baxsaday soo sadaqaystay bishan Ramadaan ee barakaysan ee wakaalada bixinaysay culumadii noo keentay waa raashin aad u badan waan u duceynaynaa maalkooda dadkooda caruurtooda ehelkooda Allah barakay jannada firdawsi ilaahay ugu bishaaree naarta Allah ka xuree raashinkan waa badan yahay waa u mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol 15 ruux magaalada ugu liidanaan qornay annaga waa fiirinay duqaalka imaamka jiifta waa fariisanay 15 ruux dib ma haystaan aan lahaynaan aan u qornay qodii asnoo keenteen waa in ka gudoominay oo maaragtay alxamdulillah waxa waaye saakiinta alxamdulillah loo soo deeqay waan in ka gudoominay intii soo baxsatay Allah barakee dambigooda Allah dhaafa dambaartooda Allah dhaafa maalkooda Allah barakee marka insha Allah taala waqtiga ramadaanka ninka alxamdulillah soo xasuustay masaakiinta alxamdulillah rabbil caalamiin meel kasta joogaanba soo xasuusteen waxooda alxamdulillah wax baraka Allah kari cimrigooda Allah barakee awlaadooda Allah barakee magal Allah naar ganne sagale munaqufne yobilo adinki namqufne qufne alxamdulillah rabbiin gudaani صدقة بريان كي تفتح الدنيا ربي قدام فوق كسجاير كاي جاهل رب صلى الله قبلنا الحمد لله الشكر باللي غير كي جي غير كي كابشرتي لا سقال أرجعنا ربي قدامي ما حدي ناس نيجال شيء ما حدي قبضني إلا نرجعه وبليان تنوع قابته ويا بيشيل برلان كي يصير نوع قابته مجانا لا مجانتي ربي قدام سلة مجانتي ربي ساكت كايد إلهي سبحانه وتعالى نكون مهدنينا إلهي نسوى فجأي ما أنت فرصدان جمعة نو كنتي إفطار كان وناكسن آدي آد ومعان إلهي نسوى قارسي يعني إلهي كون مهدنينا إلهي نأيقنا أجر يا حسنات الله كسيو أنت كشغين سو هوشا نصعطو دباتة دي يومارتي أونكي دو كسعطونا إلهي أجر يا حسنات الله كسيو مركا حافظان أدركيسان ددك هذا وحسيني وشاني توقف واي laakiin intaanoo taagan kulli isma dhaanta waay aad iyo aad bay baahid jirtaa marka insha allahu tacaala kuwan iyo kuwo kaleba muslimiinta intii maaragtay oo
wax saaciidoyn leh oo bishan dhexdeedii oo sadaqa baxsanayso waa munaasib in lala soo gaaro jazaakumullahu khayran wa ahsanallahu ilaykum. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahay waa salaamay waa salaamantihiin salaantaad bacdigeed. Waxaan joogaa aniga waxaa waye imaamka masjidka Bidda yaan ku soo jeedaa imaamka masjidka Biddan ahay. Mahadsantihiin raashinka oo waxaa waye na soo gaaray oo walaalahayna waa na soo gaarsiiyeen oo intii la soo baxday ilaahay subxaanahu wa tacaala ha uga dhiga maraj janaad ay cunayaan ilaahay uga dhiga. walaalahay waa mahadsantihiin waa billahi tawfiiq. dadka islaamka oo na soo gartay oo maartay inta afurka yar noo gartay khayr Allah sii waa mahadsan yihiin oo meeshan la yiraahdo kamar leh meeshan la yiraahdo noo keenay oo aminkan waqtigan soo kul joogo waqti xilligan kul noo keenay waa mahadsantihiin boqolka boqol hadba in celinay waa ku mahadsantihiin khayr Allah sii ilaahay wixii wax baraka leh ka dhigo wax baraka ziyaado iimaan Allah ka dhigo ilaahay barakeeyo khayr Allah sawaabka aakhir Allah ka thawaabiyo khayr Allah ka thawaabiyo خير جنة أبارك جنة الله كديجو. waxaa la dhahaa Isaaq Dhowr Nuur odayga magaalada Roodle Jaalmakaana dadkii noo soo gartay macawadan raashinka noo soo gartay waqtigaan hadda lagu jiro noo soo gartay horta boqolkiiba boqol u mahadcelinaynaa marka ilaahay sadaqada soo dhiibteen nin wala wixii soo jannatul firdaws Allah ugu dhigo marka waa inaan mahadcelinaynaa dadkii walaalka ahay oo xoolahooda alaabtan soo geliyo afurkaas wanaagsan noo keenay Allah barakee wixii ay ku bixiyeen wax qeyrkaba Allah sii runtii waa taariikh raashin noocan oo saan u macaan oo subag gale oo timirta leh oo qaxwada leh intii lagu soo miji lagu afuri jiray noola keena Ilaahay waa aadan ugu faraxsanahay midda labaad dadkii soo dirimihina dadkii haddana oo walaalaheen oo dadkii awal madrasada ka baxay ahay oo haddana qaybta ka qaatay oo xoogoodii hore idoo loo sooman yahay haddana noo qaybin haddana waa mahadsantihiin Allah idin barakeeyo waad mahadsantihiin raashinkii aad soo darteen waana soo gaaray khayran idin rajaynaynaa miisaanka xasanaadka Allah idinkugu kaba dad reebaadiyo tabaalaysan oo bil Ramadaan lagu jiro ayaad wax u keentaan wixii aad baxsateen bedelkood Allah idin sii waa idin duceyn باشا أمر جيل عوتو يا اللي لها خير الله إنسي ولا لها راشين كله سو ديبي راشين وانا سو جاري ومحسنتين خير الله إنسي آخر يدين بلا إنكين بالغبطة الحمد لله ونو إما راشين واحد سنة وانا لسي خير الله إنسي أنا أو بدنا نقول اللي راه وحين جو اللي راه ونكون نقولنا هاي راشين أو مسلمين أي اللي صبحين تصم فاريال أي اللي صبحين أنا إما هذه راشين كذا هاي مش نقول تيجي أنقاذن هاينا dadka la soo baxay xoolahooda iyo maalkooda Allah barakee dadkii ay ku imaaday oo soo gaarsiin oo noo keeneen Allah barakee dadkii ayaan mahad u celinayna waa mahadsantiin Allah in barakee maalkiin iyo dadkiin iyo xoolihiina Allah barakee ani waxa la yiraahdaa diiri boolo waxaan joogaa meel bambool yiraahda oo subcounty Carabiyaha maanta hadda la diidin waxaan noo imaaday da'al weynan muslimiina noo imaaday raashin baa noola keenay raashin badan noola keenay hadda la diidin dadka asaga ahay oo soo xasuustay oo walaalaha ahay oo muslimiinta ahay oo dadka asahan aad ugu mahadcelinayna raashinka meeladka imaaday anagoon ogaanay nala kor keenay waa duceynay dadka asahay aadan ugu mahadcelinayna ilaahay ha barakeeyo waxood Allah deeqsiiyo ilaahay idinkiisa jannatul firdaws Allah ku siiyo dambigoodii midka waalidiintoodii midka muslimiinta Allah dhaafo waxood Allah deeqsiiyo annaga waa duceynayna waxa ka noola sheegay in biina noogula dira biyaha iyo raashinka weli waxaad moodaa anaga inaan biyaha sii jecelahay nafaana hayse waxaa la yidhi inta la arka nolosha waxaa la yidhi waxaa waaye nafta waxaa la yidhi waa biyi nolosha waa caana biyi wax ka sarreeya ma laha labada iswarsanayba biyaha iswarsanaar biyi inta loo doonaa aan lahaynay khayr falaban Allah siinay annaga dadkaas haddaa al waa inaan ducaan ku ognahay insha Allah jannaan ugu ducaynaynaa insha Allah magacaydu waa Cabdi Cumar waxaan joognaa bambodaas oo ka tirsan subcounty Carabiyaha horta farax kaliya aan la hadli karin galabta ilaahay muslimiinta alxamdulillah hay baadi waxa noo soo daaqday Allah barakee maalkeeda Allah barakee kuwii ka xajiyay dambi dhaaf Allah ka siiye ubadkooda alxamdulillah baadi Allah ka dhiga biina haday noogu dareen raashinna nala sii galabta farax kale amlaadeen bil amaad amaal iyo bil amay iyo ubad bala wala duceynahay marka insha Allah saan iyo kasii fiican inaad noo sii xasuusatiin ayaan u baahanahay khayr Allah in sii maalkiina Allah barakee wax kale ku sii daraa ma walaha walaalayaal waa maadsiin dadkii wakaalada tanmiya oo numul insaaniya oo noo keentay raashinkan way mahadsiin
raashinkan dad masaakiin ah loogu talagalay dadka masaakiintana waa soo gaaray si wanaagsan isku soo gaaray ayana waa u mahad celinaynaa dadka muxsiniinta oo keenay iyo dadka shaqadooda noo keenay waa mahadsantiin midii biyaha oo shanta booyd oo noo keenteen khayr Allah in sii waa ku mahadsantiin waa ii mahad celinaynaa waxa la yiraahdaa Maxamed Salebaan meeshan joogo waa oda raashinkan noola keenay marka meeshan meel aad loogu rafaadsan yahay raashinka hadda lama filayn dad badan ah helay inta loogu soo tirigalin way heleen waan mahadsantiin dadka noo soo diri oo afurkan nala soo wadaagay aadaan ugu rafaadsaneenay waa mahadsantiin aan leenahay waana soo gaar raashinka walaalkan waana soo gaarsiiyeen idinkana khayr Allah in sii janna Allah in sii biyaha aad sheegteen aad meeshan loogu dhib qabaa oona aad loogu dhib qabaa iyo baahi intaas leh biyaan waa ku mahadsantiin raashinkan waa helnay walaalkan waana soo galiyeen wassalaamu calaykum waraxmatullahi